السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام دمانتي ميلو باجوكتان عشر كان كوري waxaan kusoo baranay SI unit System International Unit casharka maanta waxaan ku baran doonaa measuring and tools markaan baranayno markaan baranayno waxaan u baahanahay qalabka marka la cabirayo wixii lagu cabiri lahaa tusaale ahaan ka soo qaad waxaan cabiranaa dhererka shayga waxaan ku cabiri karnaa waxa la yiraahdo rulerka waxa ku qoran ka sidii naqaano 0 halkana waa point halka u dhaxaysa 0 gana waa point yari 0.5 halkaasna waa hal iyo bad labo iyo bad saddex iyo bad marka shayga waa saarsa kadibna ka saas loo cabiraysaa markaasna ku ogaanaysa shayga cabirkiisu intuu yahay kadibna waa saarsa intuu yahay mar cabirada haduu shan yahay shan waa tasawwa ugood loo cabiri marka waxaan kaloo isticmaalaa waxa la yiraahdo tape marka tape-ka waxa aad loo isticmaalaa isagana marka qofku rabo inuu shay hal mitir wixii ka badan inuu cabiro ama ogaado dhererkiisa hadartina qofku isaga laftigiisa soo ogaado dhererkiisa ama guri uma la dhisay ama dhererkiisa iyo balciisa ama joogiisa rabo dhererkiisa loo ogaado wixii hal mitir ka badan ayaa badanaa loo isticmaalaa nolosha daily life-kana aad ugu badan yahay waa sidii rulerka oo kale shayga waa saaraysaa kadibna intuu mitir ayaad cabiraysaa kuwa kale oo iyaga aad loo isticmaalo waxa kamid ah marka cabirada qalabyada la isticmaalo caliberiska isaga waxa loo isticmaalaa marka la cabirayo shayga diameterkiisa oo diameterka laba qaybood baa jiro diameter shayga in dhexda laga cabiro shayga la dhex galiyo shayga gudaha diameterka halka la cabiro iyo shay ama bir ama shay weyn oo meel dalool sida seerka ku kala ama goobada oo kala leh oo god yar oo goobada kala ku dhex yaalo ama laga dululiyay in la cabiro inta diameterkiisu yahay marka labada qaybood buu leeyahay xaggan hoose shayga waa la dhex gelin karaa dhexda laga cabiri karaa shayga inta dhex gelin dhexda laga cabiri karaa ama shay xagga sarena shayga inta labada caaradood baa inta dhex geliyo waa qaybta marka qaybta sare shayga seerka waa la dhex gelinayaa kadibna waad cabiraysaa waad ka cabiraysaa kadibna waad akhriyaysaa si loo akhriyana xagga wax ku qoran inta shay centimeteradi waa 0 halkaasna waa 1 2 3 4 ilaa 10 kadibna 20 soo saasay u soconaysaa marka waxa jira decimalka marka shayga kan uu tahay hal ku yahay decimalka shayga raacaya kadib si loo cabiri lahaa ayaa xagga hoose lagu qoray oo xagga hoose waa ku qoran balkan xagga buttonka sare shayga waa la riixi karaa oo yaani riixi karaa aan waa la yareyn karaa soo celin karaa marka rabno tusaale ahaan inaan cabirno ama se aynu sheegno hadii cabirku akhriyo ka soo qaad caliberiska hadii aan haysano waxaan aragnaa halkaas inay 10 tahay inuu intaas soo akhriyay marka halkaas inay 10 tahay halka eberkan ku qoran wuxuu ku beegan yahay xariiqda halka markay 10 tahay 11 12 ku beegan yahay xariiqda 12aad marka 12 toos ugu beegna ee wax yar buu xaggan ka jiraa marka inta pointu xaggan 12 ka jiro waxaan ka ogaanayaa tirada xaggan hoose igu qoran marka halkaas waa arkaa 10 tahay 0 gaan imaanaya halka 0 horta meesha akhriyaan ay xariiqda keegaya halka waa arkaa inuu 10 inta 12 inuu dhinaca ka xiga arkaa 12 haduu toos u beegan yahay waa 12 buu akhriyaa haduu 12 ka akhriyo laakiin yar dhaafay inta pointu dhaafna kana ka akhriyaa marka halkan waxa ugu qoran xariiqda 10 baa ugu qoran 0 ilaa 10 marka meeshu kaga beegan yahay oo si toos ah xariiqa yar bay leedahay 10 numberka hoose xariiqahan hoose ilaa 10 xariiqa yar bay leeyihiin kuwaasna xariiqo labada xariiqo meesha si toos oo direct isaga beegan yihiin baa eegaysa kadibna point decimal ka hormarinaysaa waxaan uga jeedaa halkan 12 ma hayst inta xariiqda point decimal ay dhaaftay xariiq kala imaanaya anaka 10 adeer halka waan calaamad halka toos ugu beegan xariiqdaas marka waxaan oranayaa 12 haystay lagu daray 0.1 ka hawaye waa 0 oo 12 haystay 0.1 lagu daray marka waa 12.1 haduu tusaale ahaan xaan ku beegnaa oo saddex ahaana waxaan 12.3 marka halka ma laga akhriyaa inta haystay oo lagu daray decimalka shaygan marka hadaa akhriyay diameterka shayga mid ku dhex jira ama mid shay diameterkiisa ku dhex jiro dheer laga dhex cabirayo waa sidaas marka caliberiska
aad iyo aad bay muhiim ugu tahay qaar baa jira calibriska halkaa saacad kule iyagu automatic isku akhriyaya laakiin kuwana aad badana meelaha shaqooyinka aad ku arkaysaa kuwa kale laftigooda waa la isticmaalaa laakiin kuwana si aad u arkaysaa meelaha shaqada iyo aad micnaheedu kala kulmaysaa kuwa kale laftigoodana waa la isticmaalaa marka qaarkood marka kuwa kale waxa kale la isticmaalaa waxa kamid ah micrometerkana waa sidoo kale sida calibriska la isticmaalaa oo iyagana waa sidoo kale shayga halkaas dhex geliya marka la diameterka asaas laga cabirayo diameterka halkaas dhex gelinaysa kadibna diameterka wuxuu sheegaya oo shayga isaga lagama cabiri karo shay la dhex gelin tan lama dhex gelin karo shay oo halkan lama dhex gelin waxa ka wada shay diameter shay ku dhex jira lagama dhex cabiri karo laakiin diameterka shayga haduu halkaas laga cabirayo halkan dhex gelin karo ayuun baa laga cabiri karaa marka halkaas waa barrel baa la dhahaa qaybtan waa qaybta meesha ku sheegaya cabiraas ku joogo oo decimalkana iyada sheegtay barrelkaasi inta horena waa cabirka hore inta cabir ku sheegaysa marka iyadan haddaan soo dhaweyno halkan waa aragtaa 0 halkan waa 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 marka xagga sare waa tiradii caadi xaggana waa decimalkii baa ku qoran marka la akhriyayo iyadana halkaas waa cabirka caadiga ah xaggana waa pointiyadii intana oo barrelkana waa decimalka kale aad ku sii daraysid marka xaggan waxa oranaysaa tusaale ahaan kan waa arkaan 5 tahay 5 halkan waa arkaan 6 tahay 6 iyo badh 7 7 iyo badh 8 halkan waa arkaan 8 tahay halkaas waa arkaan 8 iyo badh hadii aan soo dhaweeyo halkan waa si toosan aan aragtaa ma maleynaya halkan waa 8 waa arkaan 8 xagga sare xaggana waa badhkii marka badhka waa arkaa inta decimalka ay dhaaftay 8 iyo badh decimalka ay dhaaftayna xaggan ka akhriyaa marka xariiqdaas iyadu waa linearkaas ka ku beegan xariiqda linearkaas ugu beegan wixii xaggan saa ugu soo xigaan akhriyaa marka halkan waa arkaa 15 ugu qoran tahay micnaheedu kan halkan waa 10 xaggan uu soo arkaa laakiin xaggan akhrin maayo marka xaggan waa 10 tahay kan waa 15 waxaan 15 ka kasray waa 16 ka ku xiga waa 17 marka xariiqda linearka wixii ka hooseeya waa mise 17 meesta marka waxaan oranayaa halkan waxaan haystay hore u haystay 8 iyo badh lagu daray 0.17 marka inta baan isku darayaa oo ahayd marka waxaan isku daraa 8.5 plus 0.17 waxa soo baxaysa 8.67 marka waa isaas loo cabiraa oo iyadana loo akhriyaa marka si hore u sheegnay marka barrelkaas waxa ku qoran read the scale into the barrel putting a decimal point into the front marka xagga hore waxa ka dhigaysaa decimal halkaas aan kusoo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaantiin waan salaamanaa kusoo biir channelkayga rukumo subscribe saar like commentigana waa xaggiina wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waanooyo casharka dambe ee kanka ku xiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh